Wararka naga soo gaaraya magaalada Muqdisho ayaa waxa ay sheegayaan in fanaanka Nimcaan Hilaac xil cusub loo magacaabay. Fanaanka weyn ee Nimcaan Cabdiraxmaan Hilaac ayaa maanta loo magacaabay xil cusub kadib wareegto ka soo baxday xafiiska wasiirka warfaafinta Soomaaliya Maxamed Cabdi Maareeye. Wareegtada ayaa Nimcaan Cabdiraxmaan loogu magacaabay agaasimaha wax soo saarka iyo hawlgelinta gobolada Waaberi, waxaana xilkaasi laga qaaday Maxamed Xasan Barrow. Wareegtada ka soo baxday xafiiska wasiirka warfaafinta oo xilka looga qaaday agaasimihii hore ee wax soo saarka iyo hawlgelinta gobolada Waaberi ayaa sidoo kale Maxamed Xasan Barrow loogu magacaabay la taliyaha wasiirka arrimaha horumarinta fanka. Fanaanka Nimcaan Hilaac ayaa ka mid ahaa fanaaniinta da'da yar ee soo canbaxay sanadihii ugu dambeeyay, waxa uuna fanaankan isaga soo tagay magaalada Hargeysa oo uu ku noolaa kadib cadaadis xooggan uu kala kulmay maamulkaasi Somaliland. Waxa uu ka mid yahay fanaaniinta lagu jecel yahay ugu taageerada badan geyiga Soomaalida oo dhan.